إنا لله وإنا إليه راجعون sheekada dhabta ee dilka salma cabdilahi yuusuf oo maydkeeda laga helay duleedka Laascaanood meel u jirta 8 kilomitir oo ah saygii hore ee salma ayaa shalay galab taleefan ku soo wacay salma say ukulmaan Xasan ee gaadhi kasoo kaxaystay inay saaxiib yihiin kadibna wuxuu u tagay salma isagoo u kaxaystay dhanka buurta sayidka oo Laascaanood kaga beegan dhanka koonfurta bari isagoo salma halkaasi ku dilay kadibna gaadhiga watay ku dhaxay furihiina tuuray intaasi kadib Xasan wuxuu la soo xiriiray eheladiisa waxa uu sheegay inuu salma dilay kadibna taleefankii ayuu dansaday intaasi kadib salma ayaa la baadi goobay saaka ayaa la xiriiray sheekada talasom iyadoo nabka salma ku baadi doontay GPS-ka waxaana sheekadu sheegtay inuu yaalo agagaarka buurta sayidka baadi doon dheer kadib waxaa la helay gaadhigii oo meel yaala oo hayay iyadoo kursiga hore ee gaadhiga loogu tagay salma oo la dilay sida ka muuqata sawirka hoose maydka salma ayaa la keenay cisbitaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lamana oga sababta uu saygeedii hore ku dilay salma waa hooyo u dhashay Xasan gabar sida sawirka ka muuqata inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun